وهدا فيرسد جود أهان ما أركنا هدا سميسد شمس شاكتي وارنتين ما أركنا وجامعة أنت أنا هدا آدي هذه لو سنة كل واد وارن قبل آد فربضنا عليكتان وحان ملانا يا ما أركنا وحى شاكتي قارو إني وحكي جيران مد تحي ما أركنا ودن كان هديلي مد ما أركنا ويلشي قبلها ما كلا قيب سنة سان وكلا قيب سنة عندرني لما نيجي جد ما أركنا وحان قبلها لو طلق لام وحان ويلشا لو طلق لي صح marka wiilasha inta haday yimaadeen ma arkana influence badan ku furmay ma arkana way bulsho badan yihiin gabdhaha marka loo fiiriyo marka waxa u maleynaya waxa keenaysa maadaama wiilasha iska bulsho badan yihiin wiil qaarkood wax iska aadiyaan sports ay galiyaan wiil kale ma arkana balwadooyin kale iska leeyihiin marka gabdhaha marka loo fiiriyo waxa xogaa ka yaraadaan leeyahay shaqadii guriga ay ka qaban jireen Soomaaliya hadii la fiiriyo marka maadaama gabdhaha shaqadii laga yeereeyay ma arkana waxa soo baxdaan isleeyahay fursad weyn inay jaamacadda aadaan marka la fiiriyo hadartaan adduunkana marka la fiiriyo waxa lagu leeyahay ma arkin research la sameeyaan maal akhrini shamsa waxa research ma arkin laakiin runta research jira waa UN-ta waxa fiirinaysay ma arkin hadii la tababar ama iskuulka gabdhaha iskuulka la geeyo wiilashan iskuulka la geeyo kee wax soo saari karo waxaana la arkay gabdhaha inay wax soo saari karaan marka loo fiiriyo wiilasha marka waan aad ku faraxsanahay waxaan isleeyahay taas ah keentay laftigeeda wallahi waa yaab leh aad baa maasantahay Cabdirasaaq Yuusuf waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ummadda Soomaaliyeed oo ku nool state-kan ama waalidiinta ama dhalinyarada maxaad jeclaan lahayd inay kugu caawiyaan adiga hay'adan aniga horta ummadda Soomaaliyeed markaan dhahno anagu dhan waa isleenahay sax haddaad fiirisid hal dhaqan aan wada leenahay soo dhaqan markaan wada leenahay maxaa danteena waxa u maleysaa inay hal maxaa ujeed leedahay sax aniga arday ahaan ama ardaydeeno dhan maxay ugu caawin karaan waa Soomaalida because Soomaalida anagana Soomaalidana ka mid nahay mugtaa runtii waxa tiin dadka future-ka Soomaalida maxay ugu caawin karaan waa markaas waxaan ka hadlaynaa waalidiinteena ka hadlaynaa sax iyo qofkii maxaan waalid noogu aadan ama qofkii maxaa naga weyn oo ma fikrad maxaa nagu soo beerinay marka mid koowaad horta inay waalidiintii ay gartaan dhaqanka Soomaali ka jiray dhaqanka Mareykan ka jiray inuu laba kala yahay in horta ay fahmaan wali aysan dhaqankii Soomaaliya oo adkaa oo ay ahayd maxaa gabadha wax ma baran karto oo ama gabadha maxaa jikada noogu jirto tii la dhahay dhaqankaasito dhaqankaas horta in xoogaa la fududeeyo mid kale oo ka hadlay waxa waaye sidaan dhahay maxaa waxa laga yaabaa maxaa waalidkii inuusan wiilkii maxaa ku garab galin maxaa ama gabadhii uusan ku garab galin ardayga inuusan maxaa yani waxbarashadiisa sii wato ama uusan yani qofkii marka homework soo sameeyay ama iskoolka ka yimaad guriga imaadid dhaqanka maxaa iskoolka ka jira waalidiinta ma oga waxa jira dhaqan kale inay yani hadda fiirsid maxaa dadka Mareykanka ah ku dhashay ama Mareykanka ah ama jinsiyadaha kale oo yani oo dhaqan duwan wato ardayda maxaa way ku garab galaan waxa arkaysaa sanadka ugu horeeyo waalidka gacanta soo qabanaya ardayda jaamacadda asaa la wareegayo tutusaayo xataa waxa sida loo sameeyo sababtoo hore uu soo maray oo maxaa wixii dhan tutusaayo marka wiilka Soomaaliya markuu ama gabadha Soomaaliya markuu dugsiga sare ka soo baxa oo jaamacad imaado wuxuu u maleynayaa inuu maxaa wadan hadda koob cusub uu tagay oo waxba kama yaqaan marka dhibaatooyinkaas ay kala jirto laakiin anaga Somali Student Association insha Allah waxa isku dayeynaa inaan maxaa goodkaas aan buuxino oo arday markuu imaado oo ka soo qaran jibiyo high schoolka ina anaga aan tusno oo yani aan barno dhaqankii oo maxaa jaamacadda lagu baranay lagu galnaa ma santahay maadaama hadalka tiri ah wadayaashu waxay fikirsan yihiin inay yiraahdaan gabdhaha joogan jikada Soomaaliya waagii hore jikada full time bay laakiin hadda minute iyo 2 minute ka badan laba isticmaal jikada so full time looga dhigi karo Soomaaliya because waxay yaala alaabtii electroniga microwave-kii cuntadii marka waagii hore waxay ahayd dadka jirtay waxay soo qaadanaysaa dhuxushii jikadii waqtigaas waa full time laakiin inta ma jiro taas Soomaaliya ma waalidinta say u dhahayaan marka gabadha jikada joogto may waxaan yani tusaale waxaan ka bixinaa yani dhaqankii hore oo ahayd maxaa gabadha inoo maxaa jikada ay ku jirto oo wiilkana uu wax barto oo dhihi jiray gabar waaye maxaa barashadeedana meel ma gaarayso dhihi jiray Soomaaliya runtii waqtiyada aan sheegay aqaan aniga gabdhahan iskuul waa dhigan jireen wax u diiday wali waa dhigan jireen laakiin haddaad fiirisid maxaa boqolkiiba
gabdhaha ardayda iyo boqolkiiba wiilasha ardayda waxaa u dhexeyn jiray big difference maxaa magaalooyinka maaha magaalooyinka meel walba oo Soomaaliya sidiisaba maxaa gabdhaha ku yar yihiin waxbarashada wiilasha badan laakiin hadda halkaan hadda fiiris aniga markaan ka bilaabay jaamacadda 4 sano ka hor wiilal waa stranger-na waa isnaqaanay gabdhahana waa naga badnaayeen walba ka siinay way fara badnaayeen marka taas waxay ku tusaysaa inay gabdhihii ay hadda naga dadaalkoodu naga badan yahay maxaan wiilal ahaan markaan dhaano waa arrin noo wada kulli meel fiican soo baxan in ku soo noqdo Cabdifataax Xuseen waxaa isleedahay horumarka aad ka gaari doontaan Somali Association waa wax lagu farxo horta maadaama aan ku go'aansanay inaan sanadkan aan la soo baxno Somali Student Association-ka 2 sano camal ugu qaadatay fikradaas aan la imaanay marka waxaan jeclaan lahayn in Somali student not only university-ga oo PSU-ga le maahan laakiin community college-ka high school-ka saan dadka ugu soo barbaarino markay ka soo baxaan saan u keeno SSA-ga oo university-ga maadsantahay Amal maxaa ugu darsan lahayd horumarka iyo maaragtay fiicnaanta aan ka shaqeyn lahayn Somali Student Association waxqabadkiisa maxaa isleedahay meeshee wax laga qaban karaa wallahi the mission waxa waaye inaan Soomaalida isku keeno marka iskoolaha kale ay kasoo baxaan meel ay tagaan inuu yaalnaado at the Portland State University so that's our mission missionkeena kale waxa waaye inaan dadka kale inaan barno Soomaaliga waxay yihiin dhaqankooda waxaas dhan dadka bartaan that's our other mission too maasantahay Yusuf ilaa meeqa tirada ma sheegi kartaa oo wallahi tirada haddaan dhahaa maasha Allah waa badan yihiin 100 waa gaarayaan hadda aan sii fiiriyo marka haddaysan ama konton wixii ka badan waayo marka aniga 1 iyo 2 maadan xisaabinin laakiin waa ku qiyaasayaa sababtoo markii 4 sano ka hor iyo hadda isku fiirsi tirada weyn u dhaxayso marka ilaaha hadduu yiraahdo waxaan rajeynaynaa inay kasii bataan maadaama daaya intaanan barnaamijka duubista bilaabin waxaa tiri dad kala imaanayay oo maaragtay cudur daartay marka yaa ka mid ahaa waa jiraan arday badan waxaa jirtay oo sida ardayda dhan isku wada keeni karin halkan marka arday waxaa jirtay halkan imaan rabtay inay halkan ka soo qayb gasho haddana magacooda ma kusoo koobi kara halkan laakiin gabar waxaan sheegi lahaa iyadana maxaa ka mid ah maxaa kuwa hogaamiye organization oo Soomaaliya oo hatta ka ah maxaa leader-ka ah maxaa my voice la Faadumo Ali halkan aan sheegi lahaa marka halkan waa imaan waysmaanta dana doonaa maasantahay maadaama barnaamijkeena 10 daqiiqo ka dhiman yahay maxaad ugu darsan lahayd fikrad caawa waxaad halkan u timid ama maaragtay Soomaalida u sheegi lahayd ku daawanaysa أنا هاد ما أنت واحد سومالي ذو شيء لها إن والدين تو عاد وفرحان إن هاي إن Somali Student Association أو كبلا ونايا Portland State وكبلا وذي لكن هادر أجرتو دلنا يرو أو عاد وفرحسن إن رمهاس تحقليان أو رموا وين كديجان وعاون لها ين maxaa mustaqbalka ilmaheena kala yaryar oo dhiganayaan dugsi sare iyo dugsiga dhexe iyo inta ka sii hooseeso maxaa yeelay anaga waxa ka imaanay wadan aad u dhibaataysan umadiisa dhibaataysan tahay marka hadaan anaga oo wadanka qurba jooga aynan iscaawin dhibaatadeena way badanaysaa marka inaan isku imaano oo maxaa ahaay aynan ismaqalno oo fikrada iska dhageysano oo inta yaryarna aan waxa siino muxuu hayay fursadooyin ayagana wax ku bartaan maxaa yeelay hadda hadaa fiirisid history-ga America dhibaatooyin badan ka soo gaaray dadka madowga ah ama 5 sano hadda ka hor ma ku fikireenin in madow la dooranayo ama 10 sano ka hor sida isaga loo doortayna waxay ahayd dhalinyarada oo average-ka hadii la fiiriyo inta people oo vote gareeyaan marka anaga hadda inteena yaryar hadaan iscaawino oo wax barano maxaa yeelay horaa waxa loo dhahay cilmiga waa wax indhahaaga waa cilmi waa iftiin wax ku arkaysid marka wadankeena wax u qabanayna inaga wax isku qabanayna dariskeena wax u qabanayna in
qur-aankana wuxuu sheegayaa xadiidka haddaa haysatid muxuu ahayey xoog ama muxuu ahayey cilmi aad wax ku qabanaynin intaa dadka qofka walaalka ku saayidisid waaye marka I'm very happy aada ugu faraxsanahay inaan inta la fadhiisto intaanoo wiilal iyo Soomaaliyeed dhaqankeena ma jirto gabar iyo Soomaali meel gabar iyo wiil meel isku imaanayaan marka inaan waxaas bilowno anagoo og diinteena anagoo og dhaqankeena aad ma santahay Shamso Hussein Abdi Fatah maxaad maadaama barnaamijkeenu gabagabeeyay kula talinay dadka ku daawanaya caawiya sababta halkan u timid sababta halkan u imaanay waxa weeyaan in oo aan isku keeno Soomaalida dhan oo Portland ardayda ah marka waxay nala soo xiriiri karaan Facebook waa wax la yaqaano oo ardayda dhan isticmaalaan Facebook maxaa waaye in awankiisa Facebook waxa waaye Somali Student Association PSU ha okay marka kaas marka gelisid uu ku soo baxaya waxa taawanaysa aad marka barnaamijyo cusub ay soo baxaan oo miirin hadaan leenahay mise hadal hadaan rabno inaan gaarsiino students meeshan ku soo dejinaynaa qof kasta meeshuu ka akhrisanaya maadaama oo Facebook oo yahay cell phone number 2 qof kasta oo ku jira maalmahan marka meel fiican waa marka meeshaas ay nala soo xiriiri karaan marka xafiis yeelanana sanadkan dhamaadkiisa xafiiska imaan karaan aad waa mahadsantahay محمد هذا نوصل لنا دائما برنامج كنا ودمانة I'm just very happy about this whole association and hopefully it'll bring us together and unite us together no matter what tribe we are leave that all behind and just come together and help make a difference. ألف ما سنتهي محمد أمال maxaad ugu darsan lahayd oo maaragtay dadka ku daawanaya caawa u sheegi lahayd waxaan dhihi lahaa hadda waa kaasoo arkaysaan soo dadkana fiirsanaya dhan Somali Student Association Soomaalida dhan la isku keena la rabaa soo ayagana kasoo qayb galaan insha Allah in the future aad baa mahadsan tahay ana Cabdirasaaq Yuusuf fikradaha balnasi maadaama barnaamijku gabagab yahay bal waxaa kula talin lahayd dadka ku daawanaya caawa ama waalidiinta ama ha noqdaan dadka maaragtay magaalada degan dhalinyarada sidaadoo kale horta marka hore waxaan dhihi lahaa waa mahadsantihiin markana haddaadna daawataan insha Allah waana daawan doontaan u malaynaya barnaamijkan marka hore waxaan dhihi lahaa maadaama markana organization keer aan sameeynay inta badan ay arday yihiin ama wax jaamacadda laga sameeyay ay tahay haddana markana organization u furan Soomaalida dhan community dhan u furan marka waxaan leenahay naga soo qayb gala nala socda marka mar walbana waxaan leeyahay kama marna anaga wax organization ah maadaama wali aan isku keenin waalidiintii markana oo wali na arkin haddana waxaan macnaha aaminsanahay wali waalidkiina meesha ka marneen hadda kulligan waxaan u maleynayaa saakayto weekend bay ahayd nin walba gurigiisa iska baashaalay markana class wax ma jirin marka wayna la socdeen inaan inta imaanayno nin walba hooyadiisa ama aabbihiisa soo fasaxay marka waxaan isleeyahay taasna taageero weyn nagu siiyay insha Allah waan wada shaqeyn doonaa hadduu Ilaahay raahdo waa idin soo bandhigi doonaa barnaamijyada aan sameyn doono hadduu Ilaahay raahdo sanadaha soo socda bilooyinka soo socdo waxaan filayaa inay ka qayb qaadan doonaan qayb libax la ka qaadan doonaan insha Allah waan isla shaqeyn doonaa aan ku mahadsantihiin war labaad aad mahadsan ujeeda studio weyn baa leenahay Yuusuf oo lagu sameyn kara xafladooyin صح markas la iimaan kartiin ama hidiyay dhaqankiina adinkoo maaragtay in meeshan aad ka muujisaan anytime inta soo wacdin Somali TV tira maanta waxaan ku sameynaynaa barnaamij TV-ga oo laga daawado ama mar walba waan soo dhaweynaynaa waana ka raali ka ahayd weekii hore maadaama TV-ga dhahay تيري راني واني ما لنا سليمان لكن واحد ما لي فاهم سا marka aad baan ugu madcelinayna barnaamijkan barnaamij aad wanaagsan weey waana jecelnahay runtii in ardaydeena maaragtay yimaadaan halkan ay maaragtay fikradahooda ay u sheegaan dadka ku nool statekeena marka markaas la u baahantiin inaa noo timaadiin soo dhawaada maadaama barnaamijkuna gabagabay yahay dadku daawanaya sababta inta uu timid fikradaada waxay iyo wixii maaragtay qof hadduu jira uu hilmaamay uu rabo inuu nagu darsado horta marka hore waxaan halkan u imaan waxaa waaye inaan u sheegno maxaa ummadda Soomaaliyeed ee Oregon inay jirto maxaa Somali Student Association haddaysan ka warqabin
ay jirto ay tahay maxaa in group ama organization oo maxaa u diyaar ah inuu ardayda Soomaaliyeed oo maxaa oo kuwa yar yar ka ah oo ka soo baxaya maxaa dugsiyada sare dugsiyada dhexe inaan ka caawin karno si maxaa u imaadaan maxaa jaamacadda waalidiintan insha Allah waxaan ka codsanaynaa inay ugu garab galaan nala shaqeeyaan on maxaa sidii aan maxaa tacliinta Soomaaliyeed aan u badin lahayn because waxa la dhahay hadda koora waxa la yiri qowmiyad maxaa ka tacliin badan qowmiyada kale qowmiyada tacliinta badan ayaa maxaa dhaqan maxaa yani ka fiican ama maxaa noloshooda ka fiican marka Soomaaliyana insha Allah waxaan isku dayeynaa in oo Soomaali ay noqoto qowmiyad tacliin badan insha Allah aad baa mahadsantahay Yuusuf dhammaantiina sida sharafta leh aan ugu timaadeen daawadayaal barnaamijkan aad daawanaysiin waa Somali TV run ahaantii dhalinyarada halkan jaamacadda dhigta Portland State University aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sidii sharafta leh ay noogu yimaadeen waxaan jecelnahay dadkiinan kale maaragtay organizationada wada ama Somali community ama hay'adooyinka markas la u baahantiin waan soo way kartaan aad baan nii soo dhaweynaynaa marka haddii aad sidii hore noogu sheegeen Somali Association oo u baahantiin maaragtay inaad soo qayb gashaan waxay leeyihiin website-kooda ama Facebook-kooda telefonkooda anakana telefonkeena